yuusuf maadey maxamed oo ah aabba dhalay 4 caruur ah oo ay 4tiisa caruuriba ku dhasheen dalka Canada ayaa la sheegay in maanta gelinka dambe oo isniina loo mastaafurin doono dalka Soomaaliya kadib markii loo diiday sharcigii dalkaasi ninkan oo markii hore ku soo galay dalka Canada baasaboorka dalka Kenya. yuusuf maadey ayaa sheegay in baasaboorka Kenya uu ku helay si fudud oo uu dalkaasi ku galay hase ahaatee dhalasho ahaan uu yahay nin Soomaaliya oo uu ka yimid magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Jaaliyada Soomaalida ee magaalada Edmonton ayaa waraaqaha petitionka loo yaqaano saxeexaya waxaana la filayaa in uu la kulmi doono dhowr mas-uul oo uu ka mid yahay wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalkaasi Canada. yuusuf maadey maxamed ayaa haddaba u waramay wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta. wallahi Sahro meeshan waxaan imaaday 2013 haye waxaan ka soo baxay xerada qaxootiga ifo waxaan soo samaystay qoyskayga intii iga joogay si aan ula midoobo waxaan soo samaystay baasaboor Kenya kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa sharciga Kenya dadka qaxootiga ku jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababtoo xerada hadaan qaadanin sharciga kuma noolaan kartid ba waa gartay waxay qaxootinimadan waan ka markaas ayada maanan wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dawladdan Canada wax markii aan airport ka soo degay waxay u qabteen baasaboorka waana u sheegay inaan xerada qaxootiga deganaa marka ma qaxootinima lagu keenay markii lagu keenay Canada mase waxaad ku imaaday baasaboor cidna ima keenin Canada aan iskeenay baasaboorkaasaan ku imaaday waa gartay marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday qaxootinimada waxay dhaheen baasaboorkan Kenya kugu haynaa way diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan haye xaaskayga joogay meesha oo u imaaday marka xaaskayga ayaa sponsor ii xaraysay waa gartay adoo jooga wadanka gudihiisa instate sponsor bay ii xaraysay adii instate sponsorka meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aad mari jirtay markaad Afrika joogtida inta lagu mariyay caafimaadka la mariyay wixii dawladdan inaan criminal ka galin inaan Kenya dambi ka soo galin wixii dhan la cadeeyay kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fee bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen waxaan filayay in la isiinayo sharcigan muday waa gartay adii weli processkay uu socdaa laakiin kuwa xuduudaha Canada ilaaliya ayaa igu dhagan oo waan ku celinaynaa haye intee lagu celinayaa Kenyan ku celinaynaa marka uu sheegay waxaan raani Kenyan Soomaali baan ahay Soomaali igu celiya haye adii arinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin community-gii Soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kaceen petition badan baa la xareeyay caawad ku qoran tahay dhahay falayga oo dib lagu celinayo oo dib lii celinaa waa gartay marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arintan culays kugu tahay marka waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska adiga waa dareemi kartaa adiga oo 4 ciyaal iyo mujeedaa ninkaagi oo adiga 4 ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagi laga qaaday waxa aad dareemi kartaa qoyska dareemayaan waa gartay cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirto dhadhaab in halkaana xaaskaagi waxaas oo dhan ay joogan wax ku xaqiijiyay ma la laayahay ama masamaba ku weydiininba dawladda waxaan bal imaaday wixii qaxootiga waxaa kaloo la imaaday dukumentigii dawladda Kenya ACC inaan Kenya qaxooti ku dhex ahay UNHCR dukumentiga ACC lawyerkayga hore UNHCR xitaa uu la xiriiray UNHCR way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa marka adi wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan community-ga aan la deganaa xerada jail lady xerada dhadhaab dhan mas'uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta haddii aad waraysi ka qaadi kartid xitaa waa gartay bal marka waxaad iga warantaa hadda adiga haddii lagu celiyo oo lagu qaado waxay ku dhaheen Kenyan kugu celinayna marka muxuu yahay hadda waxa intaan ka badan oo aad samayn kartid marka laga soo tago cadeemahan aad sheegtay inaad keento wallahi hadda ani wax awood waa tii ilaahay wax kaloon samayn kara ma jirto wixii un dee ligu amro inaan fuliyo weeye wax kaloon samayn kara oo hadda aan laakiin aad bay u dadaalayaan community-ga dadaalaya dad badan baa socda meediyihii dhan baa Canada saxaafadii ugu waaweyn oo dhan baa noo imaaday uuna waraystay meediyaha geliyey marka wasiirkan la ballansanahay waa la dadaalayaa waayahay